madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo waraysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin khilaafka dhanka xuduudda ee kala dhaxeeya Somaliland iyo golaha iskaashiga maamul goboleedyada. Somaliland ayuu sheegay inay iyadu ku soo xadgudubtay dhulka uu sheegay in Puntland ay leedahay. Waxa uu tilmaamay in maamulada ay dhistaan golo ay sharci u leeyihiin arrintaasina ay tahay arrin dastuuri ah. dowladda federaalka ayuu sheegay inuu kala shaqayn doono wixii dib u dhis ah. Ali Baruud oo Garowe ku waraystay ayaa marka hore weydiiyay waxa ay tahay hadafka uu ka leeyahay Puntland. hadafkeena koowaad waxa weeye wixii Puntland ay haysatay inaan tayeeno, wixii ka habcay aan toosino, wixii markaas tayo xumaan aan tayadooda kor u qaadno. sidoo kale hadafkeega labaad wuxuu ahaa inaan tiigsano waxa Puntland iyo shacabkeeda ay ku taamayeen inaan gaarno. dhanka amniga qaybo ka mid ah Puntland waxa ka hawlgala ururada Al-Shabaab iyo ISIS. muxuu yahay qorshahaagu amnigu si aad wax uga qabatid arrinta? waa sax, Puntland inkastoo ay sida gobolada kale ee koonfurta ay dhahayn, laakiin labada buurood ee dhinaca galbeed iyo bari ka kala xiga ee magaalada Boosaaso waxaa xarumo kule ama ka hawlgala Al-Shabaab iyo ISIS. waxaa nooga qorshaysan dowladda Puntland iyadoo kaashanaysa bulshadeeda iyo dhammaan awoodaha ay leedahay inay arrimahaas ahmiyad weyn siiso. ulajeedada u dambeysana tahay inay soo afjarto si dalkan ammaankii uu ku nooloon jiray loo helo. goormaad soo afjaraysaa? xilli ma qabsan kartaa? xilli ma qabsan karno, laakiin waxaan rabnaa inaan ka howlgalno annagoo kaashanayna awoodeenna lana kaashanayna caalamka iyo ciddii naga kaalmaynaysa. idinka iyo Somaliland muddo dheer waxaa idinka dhaxeeyay murandulaad. Somaliland waxay sheegaysaa inay xadkeedu yahay duleedka Garowe, idinkana inay tahay labida Gaatima oo u dhow Burco. ma jira hal aad ku maareynaysan khilaafka idin dhaxeeya? annaga iyo maamulka Somaliland muranduleed nagama dhaxeeyo, laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland. waad ogtihiin 1990kii dalku markuu dhacay, dalku waxaa ka jira 18 gobol oo la yaqaan oo cayiman. wixii intaa ka dambeeyay dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay. Somaliland waxaa lagu aasaasay markii ugu dambeysay marka Burco laga tago Boorama. qabaa'ilkii ku bahoobay waa la yaqaan. Garowe markii la aasaasana qabaa'il ku bahoobay waa la yaqaan. qabaa'ilku ku bahoobay Puntland dhisideeda waa gobolada bari, Nugaal, waqooyiga Gaalkacyo, Sool, Sanaag bari iyo Buuhoodle. wax muran oo ku jira male, taariikhduna way sheegaysaa, dadkeedana waa joogaan. cid ka maqnayd oo qabaa'ilka dadkaas iyo siyaasiyiintiisa dhisidii ma jirin, iyo ururadii markaa matalayay ee SSDF, USB, SNDU. marka cidda xadgudubtay dadku waa u jeedaa. waxaan rajaynayaa inay iyagu waansamaan. annagu dagaal maaha ulajeedadeennu, laakiin dhul muran aan uga jirno ma jiro. annaga muran ma jiro, dhulkan dhul ay ku soo xadgudbeen way. marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii. iyaguna waxay aaminsan yihiin inaad idinku ku soo xadgudubteen xuduud ay la leeyihiin Soomaaliya. hadday iyagu Ingiriis noqdeen anagu Talyaani ma nihin. dhul 60kii ka hor Talyaani Ingiriis baa gumaysan jiray, halka ma yaalo. dal Soomaaliyeed oo calan qaatay 1 Juulaay, ummadda Soomaaliyeed oo xor ah oo jamhuuriyadda Soomaaliya lagu dhisay. taas adduunka aqoonsan yahay, UN ku aqoonsan yahay. dalka Soomaaliyeed waa dal Soomaali la yiraahdo. marka cidda khaldan iyana waa istaqaana, annaguna waa ognahay. haddii labadiina fakar ay saa u kala fog yihiin, midna uusan ka talaasulayn qadiyadiisa, ma jirtaa cid kale oo idin dhexdhexaadin kartaa? haddii horta wixii iskhilaafsan baa wax loo kala qaadaa, laakiin wixii khaldan waa la qabtaa. ani waxaan qabaa mashruuca Somaliland waa mashruuc khaldan oo wadadii saxda ahayd. marka kolley cid qabata way heli doontaa ama waqtiga qaban doona, laakiin anigu hadda ma arko khilaaf annaga noo dhaxeeya. Puntland waa maamul goboleedka ugu weyn federaal xubnaha ka tirsan dowladda federaalka. xiriirka Puntland iyo dowladda dhexana ma wanaagsanay muddooyinkii xilligan hadda joogno. madaxweyne cusub baa lagu doortay Puntland. arrintaa maxaad ka bedelaysaa? dowladda Puntland markii la aasaasayay waxaa saldhig u ahaa in ay qayb ka ahaato nidaam dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah. waxaan shacabka Puntland iyo madaxdii Puntland iyo odayadii soo maray uga mahadnaqayaa doorka ay ka soo qaateen inay dowlad Soomaaliyeed la helo oo federaal ah.
dowladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka jirta sida ay dad badan og yihiin Puntland naf iyo maal iyo waqti bay ku bixisay ilaalinteedana iyada waajib ka saaran annagu ma rabno dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya inay wiiqanto inay horumartaan rabnaa horena uga shaqeyn jirnay haddana ka shaqeyn doonaa wixii khilaaf marxaladda aan hadda lagu jiro waa marxalad u dhis dowladeed ah dastuurku waa qabyo shaqooyinku weli ma fariisan dalku wuxuu ka soo baxay nidaam central oo dowladda dhexe ay taliso nidaamka federaalka weli shuruuc badan oo lagu hagilaa waxba ka qabyo ah marka arrimaha laga wada shaqeynayo waxaan dhihi lahaa khilaaf maahan kala aragti duwanaan u baahan in laga shaqeeyo way waxaad musharax madaxweyne ka noqotay dowladda dhexe wasiirna waad ka noqotay waxaad sheegtay in loo baahan yahay in awoodda ay maamul goboleedada iyo dowladda dhexe u qabsadaan si sharci ah arrintaa adigu ma hirgelinaysaa anigu waxaan ka shaqeynayaa geedi socodka dhismaha dowladda Soomaaliyeed oo salf adag leh marxaladan aniga dowladda wax la qaybsanayo marka weli dhismo dowladeed baa lagu jira dhismaha marka lagu jirana dee aragti kala duwanaan dadka Soomaaliyeed waa imaan kartaa aanu aragti duwanaanta jirta khilaaf ma arko khilaafaadka shakhsiga oo madax qaar ka dhici karta taa aanu hadda dhex gelimayo madaxda iga horeysay iyo madaxda dowladda federaalku madaxda hadda joogta dowladdu dadka ma ah sidaada dowladda iyo dadka shakhsiyaadka madaxda waa in la kala saaro shakhsiyaad madaxa waa isqaban karaan aragtiyaha shakhsiga oo ku kala duwanaan karaa laakiin dowladda Soomaaliya ee federaalka waa dowlad qura oo dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ka wada shaqeeyaan la rabo horumarkeeda waa horumarka qof kasta oo Soomaaliya Puntland ahmiyad weyn bay u leedahay inay dowlad federaal oo salf adag inay dhisato waxaa jirta in la asaasay golaha iskaashiga maamul goboleedada inkastoo ay Hirshabeelle ka baxday madaxweyne adigu ma sii wadaysaa iskaashiga Puntland qayb bay ka sii hanaysaa hadii horta dastuurka dhigaya in maamul goboleedadu iskaashadaan wixii danahooda ka dhaxeeya marka in la iskaashado ma aha wax dastuurka soo fiiri waxa dadku dowladnimadu waa waxa dadku ku heshiiyaan iyo dastuurka wax walba dastuurka nafaray waa ku dhaqmi doonaa wax walba oo Puntland ay gaar u leedahayna waa ilaalin doonaa wax walba dowladda Soomaaliyeed ay wadaagtana waa ka wada shaqeyn doonaa hadii ilaahay waaga waraysigaas oo dheer waxaad ka daawan kartaan boggeena internetka bal iminkan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa